السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابين كحرين جنابكينا فصون FX kusoo dhawaada taxanaheennii barashada suuqa forex-ka qaybtiisii lixaad qaybtan lixaad waxaa uga hadli doonaa sida loo aqriyo chartiska oo forex-ka qaabkii loo aqriyo ayaan ka baran doonaa qaybtan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad fadlan waxaan ka codsanaynaa subscribe like share iyo comment haddii aad tahayna saaxiibada hore noola joogan waxaan ka codsanaynaa inaad channelka support gareysi oo aad like iyo share taba aad ku xamirtay saa wada ognahay outline-keena saddexdan qodob oo hadli doonaa line chart iyo bar chart iyo candlestick chart chart horta sawirkan waxaa la lahaa halkan ujeeda trading view waa lahaa kan website waaye waa baran doonaa qaabkii loo sameeyo kan midka aan isticmaalo waaye insha Allah isagoo qurux badan insha Allah waa idin tusi doonaa kale marka chartska waxaa la lahaa chartkan kala duwan oo ah price-ka inuu kor aadayo cagaarka ee guduudkan sama qaabkii aa u aqrin lahayd ayaa go'aan ugu gaari lahayd si trade-kaas meesha u socda aa u go'aamisi ayaan baran doonaa saa wada ognahay marka waxa uu hadli doonaa saddex qayb chartiska marka oo trade oo forex waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood inuu line chart noqdo iyo inuu noqdo bar chart iyo inuu noqdo candlestick mid walba marka waa dul istaagi doonaa line chart line chart isaga waxaa waaye wuxuu ku siinaa fikir ah sida price-kan ama lacagtan ay isku bedelayso xilliyada tusaale kale intaas waxaa noogu jiro chart oo line chart ah kan weynna waa tagi doonaa haddii la idmo waxaa ujeedaa price-kan lacagtan inay inta istaagsaneyd ee inta imaatay tani waxay kutusaa fikir ah inuu price-kii lacagtan isbedeshay kor aaday haddana hoos waxay usoo noqotay kor aaday hoos soo noqday haddana kor aaday so markana marka waxaa la lahaa line chart kan waxaa la lahaa marka line chart tusaalaha markaa fiirino marka candlestick chartka markuu saan yahay meeshaan ayaa laga bedelaa kana marka wuxuu kusiinaa saddex option hadda wuxuu noo yahay candles uu noo yahay maho kii saddexaad waxaa ka dhiganaynaa line chart saa wada ujeedin marka wuxuu kusiinaa marka lacagtan JBP USD waaye time frame-ka aa joognana waa 4 hour marka iyadu marka wuxuu kusiinaa line chartka price-kan qaabku isku bedelaa si aa u go'aamisid price-ka meeshuu aadayo tusaale kale hadda saa ujeedid haddaan inta ka bilaabno price-kan kor uu aaday xero hoos usoo noqday haddana kor uu sii aaday haddana hoos uu soo noqday haddana kor uu aaday kor uu haddana sii aaday waxyaro hoos usoo noqday kor uu sii aaday and then price-ka haddana intuu kasoo bilaabay hoos soo aaduu bilaabay marka line-ka aa noocan aa ka dhigatid ayaa waxaa la dhahaa line chart aa la dhahaa isaga marka fikirka uu kusiinaa waxaa waaye sida price-kan qiimaha oo isku bedbedelaya fikirkaas uu kusiinaa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen midkan xigo waxaa la dhahaa bar chart bar chart iyadana waxaa waaye waa data ay ku siinayso ama xog ku siinayso price-kan meeshiisa ugu sareysay iyo meeshiisa ugu horeysay uu gaaray iyadoo marka kan tusaalaha waaye kan waa tagi doonaa haddii la idmo tusaale kale waxaa ujeedaa bar chart-ka noocan oo kale waa isaga high-giisa waa kana low-giisana waa kana halka uu ka furmay iyo halka uu ka xirmay so this is marka price-ka bullish oo kor u socdo waaye hadduu oo maxaa la dhahaa oo hoos socdana waa arki doonaa insha Allah marka si kan ma fahmayno kan weyn aan fahmi doonaa haddii la idmo shaashadan meesha ayaa tagaa bar chart aa ka dooranaa bar chart marka waa ujeedaa inuu kusiiyo maxaa la dhahaa wuxuu kusiinaa nashqadaan uu kusiinaa oo ah in price-kii aa fiirisid isku bedelaayo waqti ka dambeeyay si chartka marka ugu fiican oo loo akhristo waa arki doonaa midka ugu fiican aan dooran doono laakiin saddexdaas nooc ayaa jirto oo loo aqriyo saa wada jeedin hadda hada zoom dhahno saa wada jeedin bar chart noocan waaye channelkan hadda intuu kusoo furmay wuu soo socday meeshaan uu ku xirmay mid kale aa inta ka furmay xoogaa hoos uu soo aaday haddana waa la celiyey intuu haddana ku xirmay haddana waa la furay kor uu aaday waxyar hoos uu soo aaday so chartka marka aad noocan u aqrinaysay ayaa waxaa la lahaa bar chart line chart iyo bar chart iyo candlestick waa qofka choice uu dooranayo qaabka uu price u aqrin doono dadka dhan isku wada mid maaha qofaa wuxuu jecel yahay line chart inuu ka dhigto qofaa wuxuu jecel yahay inuu candlestick ka dhigto qofaa wuxuu jecel yahay inuu bar chart ka dhigto so marka muhiimadda waxay tahay inaad fahantid qaabab kala duwan oo loo aqriyo chartiska suuqa forex-ka oo price-yadiisa inay jiraan
aysan jirin hal wax oo loo aqriyo. Midkeena saddexaad oo ah analytic. Analytic isaga muxuu keenaa marka data lamid ah, xog lamid ah bar chart-ka, laakiin isaga wuu ka wanaagsan yahay. Wuxuu u wanaagsan yahay isaga wuxuu ku siinaa body uu ku siinaa, high-giisa ku siinaa, meeshuu ku xirmo ku siinaa, opening-kii, low-gii, so qurux badan yahay isaga bar chart. Markii aad fiiri kan iyo kan markaa isku fiirisay, so kana xoogaa indhahaaga si fiican u qaban karaan, ogaan kartid wixii dhacaayo. Aan dib ugu noqon marka kana markaan ka dhigno candleska. Candleska isagaa dooranay, so soo jeedi price-ka wuxuu noqday marka mid qurux badan. So inta badan dadka oo trade gareeyo ama isticmaalo suuqan waxay isticmaalaan candlestick. Maxaa yeelay way u fududahay inuu qofkan go'aamiyo price-ka meeshuu jooga. Marka midka ugu wanaagsanaa marka waxay tahay candlestick. Marka gunaanudkii waxaa ogaataa inay jirto 3 qaabab oo kala duwan oo loo aqriyo charts-ka. Inaad line chart isticmaalaysid oo line chart wax ku go'aaminaysid oo ku trade gareynaysid, iyo inaadan line chart rabin oo bar chart isticmaashid sida kan oo kale bar chart sidaan eh, ama inaa midka ugu wanaagsan oo inta badan dadka isticmaalaan in isticmaashiyo oo ah candlestick-ga halkan buy-gii, sell-kii. Marka difference color-kan wax micno ma samaynayo, qof walba kalaro kala duwan uu isticmaalaa. So marka cashirkeenii maanta saddexdaas qodob aa horta ugu muhiimsan inaad fahantid chart-ka, trading view-gan iyo qaabkii loo sameystay. Insha Allah casharada soo socda ku jirtaa maadaama gabagabadii qaybta basic aan mari doono. Waxaan rajeynaynaa inaad wax badan ka wada fahantiin. Qodobkeena ugu dambeeya oo ah faa'iidooyinka oo candlestick leeyahay. Candlestick horta 3 faa'iido uu leeyahay. 3da faa'iido uu leeyahay waxaa waaye qofka oo marka uu bilaabayo inuu suuqan barto ama suuqa inuu falanqeeyo candlestick-ga ugu fudud. Sababta waxaa waaye suuqa markuu saan yahay, qofka way u fududahay in uu bilaaw yahay ama baranayo markaas inuu go'aamiyo oo dhaho suuqan kan kor uu aaday, kana hoos uu soo aaday. Laakiin haddii qofkan online chart uu yahay oo kale, so qofkii bilawga ahaa so confuse uu ka qaadaa. Maxay yihiin waxaan, kan intuu u socdo maxaa waaye, so wax difference uu kala sooci karo ma jiro. Halka markay candlestick ay tahayna way u fududahay inuu difference helo. Faa'iidada labaad uu leeyahay waxaa waaye qofka inuu warbixin ka heli oo indhihiisa ay la qabsan karaan. Maxaa yeelay mar walba haddii indhaha ay la qabsadaan, tusaale oo kale suuqan kor uu ahay wuu soo noqday intuu imaaday, meeshaan uu imaaday, canal-kan aa rejection. Mar walba markaa aragtid dhacdo noocaan ah ama xaalad noocaan ah, waxaa ogaanay inuu suuqan uu soo yaalay. Sababta waxaa waaye indhahaagii ayaa la qabsadeen. Laakiin haddii suuqa oo noocan yahay, suuqa hadduu noocan yahay, so ma garanaysid wax oo adi aa ku kala saari kartid. Maxaa yeelay iyagii dhan xoogaa wax farqi weyn u dhexeeyo, xoogaa qofkii comfortable ma ku dareemaayo, muuqaal ahaan ma qurxoono. Halka laakiin candlestick-ga uu ka qurux badan yahay labada kale. Marka faa'iidada labaad oo uu leeyahay waxaa waaye indhaha qofka ayaa si fudud ula qabsanayo. Faa'iidada saddexaad oo ugu dambeysa oo ah inuu qofka uu ogaan karo maxaa la uu fahmi karo suuqa markuu reversal sameynayo oo ah reversal waxaa waaye suuqa inuu kala wareegayo jihada uu socdo iyo jihada kale. Sida tusaale inta ku jirnay suuqan tusaale oo kale inta aan saan u ahay intuu hoos u soo aaday bullish uu sameeyay, haddana intuu back-to sameeyay oo retest ahayd haddana wuu baxay. So marka suuqa marka isagoo kor u socda aan ogahay, sidee marka u dhihi karaa suuqan hoos u socday? Reversal waxaa waaye in suuqa jihada meeshuu u socdo maahane jihadii kale uu soo aado. So waxaas dhan waa baran doonaa hada midkaas confuse ha ku qaadin. So marka waxaa ogaataa marka suuqan rejection marka laga sameeyay, rejection, multiple rejection aa ka dhacday. Finally suuqa wuxuu bilaabay marka inuu kor meeshuu ugu socdo inuu bilaabo, inuu hoos u soo socdo. You can see that's waxaa la dhahaa markaas inuu qofka fahmi karo ama la qabsan karo suuqa meelaha reversalka uu ka sameynayo iyo qaabka uu u sameynayo. Cashirkeenii qaybtiisii saddexaad, qaybtiisii lixaad intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share, comment. Haddii aad tahayna saaxiibada hore noola jooga waxaan kaa codsanaynaa inaad noo sii share gareysid. Aad iyo aad waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum.